Kulan aan caadi ahayn ayaa waxa uu ka dhacay xarunta dowladda hoose guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo lagu canaantay laba arrimood. Guddoomiyaha ahna duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho oo sheegay in xilka ka qaadayo guddoomiyaasha qaar ee degmooyinka. Sababta rasmiga ah arrintaasi ka dambeysa iyo canaantii maanta ka dhacday xarunta gobolka ayaa halkan idinkula wadaagaya soo dhawaada. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho Maxamed Axmed Amiir oo aad u cariisan ayaa isugu yeeray dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir sida aan ogaanay. Kulan ka dhacay xarunta dowladda hoose waxaa ka qayb galay dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir wuxuuna Maxamed Axmed Amiir oo lagu eedeynayo in uu ku milmay arrimaha siyaasadda gaar ahaan howlo ka madax bannaan tan dowladda hoose in uu cagaha la galay ayaa laba qodob wuxuu ku canaantay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Labada qodob ayaa ogaanay in ay kala yihiin kow in ay ka gaabiyeen ololaha arrimaha doorashooyinka diiwaangelinta dadka shacabka ah iyo sidoo kale qodobka labaad oo ah in ay wax badan ku fashilmeen oo ah arrinta nadaafadda magaalada caasimadda ah Muqdisho. Meelaha qaar ay yaalaan biyo, meelaha qaar ay yaalaan qashin, meelaha qaarna ay indhaha dadka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta iyo cid walba oo soo booqata magaalada caasimadda ah Muqdisho aysan u wanaagsaneyn. Guddoomiyaha ayaa amar ku bixiyay in isbeddel arrintan laga sameeyo waqtiyada soo socda. Haddii ay dhici weysana ay arrintan saameyn ku yeelan doonto guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Qoys iyo rajo xumo ayuu muujiyay waxa uuna si cad ugu sheegay guddoomiyaasha in uu jiro culays kaga imaanaya villa Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taas oo ku aadan in isbeddel la sameeyo la dardargeliyo arrimaha doorashooyinka nadaafadda. Haddii ay dhici weysana xilkiisa uu ku weyn doono. Wuxuu ugu hanjabay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir haddii arrintan ay wax ka qaban waayaan inta isaga aan xilka laga qaadin uu xilka ka qaadi doono guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, taasina sabab iyaga ay u yihiin. Tani ayaa imaanaysa xilli bilicda magaalada caasimadda ah Muqdisho aad ay u liidato isla markaana dhibaatooyin fara badan ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah, wadayaasha gaadiidka dadweynaha gaar ahaan kuwa loo yaqaan bajaajta iyo hoomeyada. Waxaana wax lagu qaban shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir. Lacagaha canshuuraadka ay bixiyaan waxayna ku dhacdaa jeebka shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka. Adeega ahaan sidee ayaad u aragtaa tallaabada iyo sidoo kale hadalka maanta ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka iyo kulanka degdega ah ee isugu yeeray guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo hanjabaadda ka soo baxday?